munaasabadana ay ku qalin jabinayeen arday tiro badan oo baratay culumta kala duwan ay bixiso jaamacadda Aadna Aadan University ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga Wiciid Injineer Faysal Cali Waraabe xubno ka tirsan golaha wasiirada siyaasiyiin iyo waalidiin aad u tiro badan ugu horeyn halkaasi waxa ka hadlay aasaasaha jaamacaddani Aadna Aadan Ismaaciil waxaana ugu horeyn hambalyo u dirtay ardaydani baratay caafimaadka noocyadiisa kala duwan waxaan doonayaa inaad haddaad tahay dhakhtar haddaad tahay shaybaar haddaad tahay kalkaaliye haddaad tahay umuliso haddaad tahay dhakhtar ilko haddaad tahay caafimaadka guud inaad haddana ahaato kii qarankan badbaadinayay waxaan soo dhaweynayaa ardayda iyo farxadooda iyo mustaqbalkooda mustaqbal wanaagsan baan idinku ducaynayaa geestiisa gudoomiyaha jaamacaddani wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada qaar ka mid ah ardayda ka qalin jabisay jaamacadda iyo waalidiinta ardaydani ayaa halkaasi hadalka iska daba qaatay waxa maanta halkan qalin jabinaya oo aan u dabaaldegaynaa 211 arday 178 gabdhood ah iyo 74 wiil oo isugu jira heer degree iyo heer diploma markaan sii kala qaado waxay kala yihiin 17 arday oo heer degree waxay ku takhasuseen culuumta shaybaarka caafimaadka 16 arday heer degree waxay ku takhasuseen kalkaaliyaal caafimaad nursing 18 arday oo heer degree waxay ku takhasuseen culuumta daawada ama farmasiga 13 arday oo heer degree iyana waxay ku takhasuseen caafimaadka guud public health 7 arday oo dhakhaatiir ah waxay ku takhasuseen daaweynta ilkaha dental surgery 5 arday oo heer degree ayaa iyana waxay ku takhasuseen farsamada ilkaha dental technology 56 arday oo heer diploma oo bartay umulisanimada waxaa kaloo kala jabinaya 12 arday oo heer diploma oo ku takhasusay farmasiga ama culuumta daawada carruurtan quruxda badan ee hor fadhida hablayeennamaba fakalada kala duwan soo dhammaystirtay waxaan idin leeyahay ilaahay ha idinka dhigo mid baraka leh oo idin anfaca idinka iyo waalidkiina iyo qaranka Soomaaliland oo dhan macallimiinta iyo staafka iyo dhammaan maxay hay'adaha hogaamiyaasha maxay hay'adaha Aadna Aadan University waxaan leenahay abaalkiina la soo koobi karayno aad baad mahadsantihiin ardayda waxaan leeyahay maanta qalin jabinay way qalin qorateen markaa waxaan leeyahay waxaan idinku dardaarmayaa in aad dadkiina iyo dadkiina u cadaalad samaysaan gabagabadii munaasabadana waxaa soo gunaanaday madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxaan hambalyada u dambaysa siinaynaa ardaydeena sharafta badan ee halkan maanta ka qalin jabisay waxaan leeyahay hambalyo waxaan idin raacinaynaa duco iyo dardaaran ilaahay waxaan idinka rajaynaynaa inaad noqotaan kuwii dalkooda iyo diintooda iyo dadkooda wax anfaca waxaan ugu dardaarmayaa aad ardaytiin inaad samirka badisaan dalkiina aamintaan ugu dambeyntiina waxa munaasabadaasi isla halkaasi uu madaxweyne ku-xigeenku abaalmarino ku gudoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore galay iyo dhammaanba ardayda ka qalin jabisay oo iyagana isla halkaasi aqoonsigooda aqoontan ay barteen lagu gudoonsiiyay waa Idris Bershiya telefishinka Universal Hargeysa.